aadanuhu xilliyada qaar waxa uu u baahan yahay nasasho gaar ahaan markuu wajaho maalin dheer oo daal fara badan uu la kulmo maadaama uu ku jiray shaqo ama shaqada guriga oo iska howl badan. Sadaradan soo aadan waxaan ku baranaynaa tallaabooyinka qaar sida jirka loo nasiyo waa sida uu sheegay website-ka UFM Health. Tallaabooyinka habka jirka loo nasiyo waxaa waajib ah inuu qofka si gun hoose ah u neefsado ama uu tijaabiyo leelyada neefta ee kale ee nasashada ku habboon. Waxaa lagu talinayaa inuu qofka ku qabaysto biyo kulul kaasoo jirka ku nafisayo kuna nasanayo. Halkan waxaa lagu talinayaa inaad dhageysato muusig degan, ku dhageysato meel degan oo aan buuq lahayn oo aan lagugu mashquulaynin. Qor dareenka taban iyo murugo aad dareemayso si aad u nafisto oo ay naftaada ugu raaxaysato. Ciyaar sportska yogaha loo yaqaano kaas oo lagu baran karo muuqaalada YouTube-ka ama lagu aqrin karo website-yada ka hadla ee dhanka internetka ku faafsan. Isku day inaad xubnaha si tartiib u nafiso fidi oo haddana soo laab arrintaas oo aad nafis ku dareemayso haddii aad hurdo yari ay ku haysana aad kaga bixi karto. Qodobka ugu dambeeya waxaa lagu talinayaa inaad hesho fadhiyo daliig ah oo jirkaaga lagu daliigayo gaar ahaan dhabarka, cabitaan diiran oo aan kafeyn lahayn sida shaaha, dhirta ama caano diiran. Hanad Ali Guleed.